kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyey wararka cuslaa oo xogaga SSC ay ku qaadeen saldhigga Gooja Cadde. maxaa ka jira in Muuse Biixi iyo Faratoon ay dalbadeen in ciidankooda loo furo wadada si ay kaga baxaan Gooja Cadde. halkan ayaan xog idinkugu soo gudbin doonaa xaaladdu maanta sida ay tahay iyo sidoo kale fariinta degdega ah ee ka timi Garaad Jaamac Garaad Cali. maxay tahay sababta keentay in kooxdii ka dagaalamaysay bartamaha Soomaaliya ay difaaci weydo saldhigyadii iyo sidoo kale magaalooyinkii ugu muhiimsanaa gobolka Galgaduud? dowladda Turkiga oo dib ugu soo laabatay aagga Galmudug iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee laba dowladood oo si daran dooriya duqeymaha uga ridaya Soomaaliya. beesha uu kasoo jeedo Generaal Sheegowna war degdega ayay kasoo saartay xaaladiisa iyo sidoo kale xilligan halka lagu hayo iyo weliba arrinta loo haysta intaba. ma dowladda ayay ku raacsan yihiin mase waa kasoo horjeesteen oo waxay ku biireen mucaaradada uu hogaaminayo mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale weliba dadka ku haybta ah Generaal Sheegow? qaybta hoose aragtidaada noogu reebo ku xirnow wararka dhambaalka wararka. ana ku bilowna wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in xogaga SSC ay xalay weerar culus ay ku ekeeyeen saldhigga Gooja Cadde iyo sidoo kale buuraha aagga Xargega iyo Maraaga, halkaas oo weerar culus ay ku qaadeen islamarkaana ay dabka geliyeen ciidamada Somalilan ee ku sugnaa aaggaasi. sida xogta aanu ku helayno, xogaga SSC ayaa shalay waxa ay dib u gurasho ka sameeyeen aaggaasi kadib dagaal dhex maray labada dhinac, balse xalay ayay dagaal rogaal celisa dib ugu qaadeen iyagoo weliba dib u qabsaday goobihii horey looga kiciyey islamarkaana gacantooda ka baxay shalay, iyagoo weliba la xaqiijiyey in ay sii riixeen in door ah ciidankii militariga Somalilan ee fadhiga ku lahaa Gooja Cadde. wararkiisii soo taraya ayaa waxay xaqiijinayaan in xogaga SSC ay ka go-an tahay in ay qaadaan weerareys daba joog ah, iyagoo maantana doonaya in ay ku ekeeyaan weerarkii ugu cuslaa aagga Gooja Cadde, gaar ahaan dhinaca bariga ee boolaha Xargega iyo sidoo kale Maraaga iyo weliba aagga garoonka diyaaradaha iyo goobo kale ayay xoogga iyo bartilmaameed ka dhigteen xogaga SSC, waxayna si gaara u doonayaan in ay weeraradooda kaga dhigaan kuwo isdaba joog ah saldhiggaasi inta ay ka xaqiijiyaan in militariga Somalilan ay iskaga baxeen Gooja Cadde. waxaa jira khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac islamarkaana soo kala gaaray labada dhinac, iyadoo xogihii ugu dambeeyay aanu helnay ay xaqiijinayaan in xaaladda dhaawacyadu ay tahay mid sii kordhaysa islamarkaana si weyn u saameysay guud ahaan deegaanada labada dhinac. xogo soo ifbaxaya ayaa tilmaamaya in ragga ku dhaawacmay uu ka mid yahay sarkaal lagu magacaabo Cabdikariin Siciid Aw Cabdi, kaas oo ka mid ahaa saraakiisha sida weyn u fadhiyay aaggaasi, islamarkaana waxay tilmaameen in uu ku dhaawacmay isagoo loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Burco ee gobolka Togdheer. halkaasna waxaa masna weerar ku soo qaaday oo bartilmaameedsaday sarkaalkaasi hablo ka soo jeeda deegaanada SSC, islamarkaana ku ilmo dhalay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. sida inoo xaqiijinayaan wararka isi soo taraya, waxaa arrintan ay ku soo aaday xilli xasaasi ah islamarkaana ay xalay xogaga SSC ku dhawaaqeen inay birta ka asleen militariga Somalilan. xogaha waxaa qayb ka ah in taleefanka iyo sidoo kale agabka sarkaalkan uu la wareegay askari kasoo jeeda Habar Jeclo, kaas oo u muuqda in uu qaatay qalabkaasi islamarkaana uu ugu talagalay in uu kala socdo xogaha iyo dhaqdhaqaaqa oo markii hore suurtagal ka tahay inuu ka dhexeeyay ciidamada Somalilan. ninkan ayaa waxa uu ka mid ahaa ragga sida weyn saameynta ugu leh islamarkaana kasoo jeeda deegaanada SSC, gaar ahaan beelaha hubeysan ee halkaasi doonaya inay deegaankooda xoreystaan. waxa uuna taageerayay ciidamada Somalilan isagoo weliba reerkiisii madaafiic iyo dagaal toosa kula jiray. Cabdikariin Siciid Aw Cabdi ayaana la tilmaamay inuu hadda uu jiifo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Burco, halkaas oo lagu dabiibayo, waxaana laga ilaalinayaa oo si gaar ah iskugu hareereeyay ciidanka booliiska, kuwaas oo qolkiisa iyo qaybaha uu ku sugan yahaba si gaar u ilaalinaya sababo la xiriira
in ay weerar midiyo ah ay ku yihiin oo ay ku hayaan gabdho iyo sidoo kale dad kasoo jeeda deegaanada SSC kuwaasoo ku sugan magaalada Laascaanood, balse iskaga dhigayay in ay yihiin kuwo soo booqanaya islamarkaana si gaar ah doonaya in ay ula socdaan xaaladiisa. Waxaa loo diiday dadka ay isku ehelka iyo isku haybta yihiin inay soo galaan qolka uu ku sugan yahay islamarkaana lagu dabiibayo, iyadoo weliba sidoo kalena la xaqiijiyey in ay ilaalo gaara ka hayaan ciidamada booliiska. Markii lagu warhelay in midiyo ay gabdho wataan oo ku hubeysan yihiin, ayaa ciidan booliis lagu hareereeyay dhaawaciisa halkaas oo ay ku hayaan weli xilligan. Dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in Korneyl Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Yaasiin Xiir Faratoon ay dalbadeen in laga wareego oo wadada loo baneeyo ciidamada Somalilan si ay uga baxaan Gooja Cadde islamarkaana ay dib ugu laabtaan Somalilan. Xogtaan helnay ayaa tilmaamaysa in wararkan la isla dhex marayo sidoo kale ay qeyb ka yihiin in ay dalbadeen in loo baneeyo, balse SSC ayaa tiri cirka mara haddii aad baxaysiin, hubkuna waa inuu galaa gacanta SSC islamarkaana ciidankiinu ay si toosa u gudbaan iyagoo weliba dhammaan agabyadii ay wateen iska wareejiyay. Ama teeda kale, haysta hubkiina iyo qalabkiina iyo guud ahaan wax walba oo aad haysateen cirka mara islamarkaana ogaada in hubkaasi uu gacanta SSC ku dambeyn doono ama dhulbahante. Waa sida ay sheegeen saraakiisha u hanjabay Yaasiin Faratoon iyo kooxdiisa ayaa xoguhu tilmaamayaan in ay ka baaqsadeen in ay isku dayaan in ciidankaasi ay guuraan oo ay baneeyaan Gooja Cadde, iyagoo weliba degi lahaa aagga meel aan sidaasi kaga fogeyn Gooja Cadde, gaar ahaan dhinaca galbeed ee fariisimada ku yaala oo ay ka mid yihiin aagga meel u dhaxaysa Yagoori iyo sidoo kale Og, halkaasoo fariisimo difaac adag ay ka sameysanayaan, iyagoo weliba suurtagal ay tahay in muddo kadib ay Somalilan dib u weerarto magaaladaasi. Xogta soo ifbaxaysa ayaana tilmaamaysa in tani ay tahay mid sidoo kale lagu wargeliyey madaxda sare ee dowladda federaalk, islamarkaana loo sheegay in labada dhinac wada hadallo ay u bilowdeen. Waxaase arrintaasi tuu tilmaamay inay tahay marin habaabin ay wadaan Yaasiin Faratoon iyo weliba Muuse Biixi Cabdi, kuwaasoo doonaya in xabadda laga joojiyo si ay uga tagaan goobta ama si ay halkaasi maalmo ugu sii nagaadaan oo nafis ay u dareemaan. Ayay doonayaan in ciidankooda xabadda laga joojiyo islamarkaana ay muujiyaan in suurtagal ay tahay inay keenayaan gurmadyo agabyo kala duwan leh. Macadda tabtan iyo qorshahan ay xilligan ku dhaqaaqeen kooxahan iyo dhinacyadan kala duwan ee isku haya aagga Laascaanood. Dhanka kalena waxaa soo ifbaxaya sababaha keenay markan in duqeymaha xagga cirka iyo dhulka ee ka socda deegaano ka tirsan Soomaaliya ay noqdaan kuwo warwalba noqda bartilmaameedyo kala duwan. Sida xogta aanu ku helnay, diyaaradaha dagaalka ee laba dowladood ayaa si toosa duqeymaha uga fulinaysa bartamaha Soomaaliya, iyagoo weliba feerta isku haya. Waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in tani ay tahay mid hoos u dhigaysa oo daciifinaysa dadaalada howlgallada, halka mid kale ay tusayso in ay tahay wadadii shaqada iyo sidoo kale la socodka dhammaan wax walba oo xaajada duruufo ah, sida inoo xaqiijiyeen saraakiisha qeybta gudaha iyo sidoo kale xubno kale. Waxaa soconaya dadaalada ugu dambeeya oo ay wadaan xoogaga hubeysan ee kasoo horjeeda dowladda dhexe. Howlgallada xagga cirka ee Turkiga iyo Mareykanku ay fulinayaan ayaa geed waayey ka dhigay kooxdii uu horey u hogaamin jiray Cali Dheere iyo sidoo kale Kawe ku tukada, kuwaasoo hadda u cararay dhinaca gobolada Jubbooyinka iyo sidoo kale Shabeellooyinka, halkaas oo ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan islamarkaana oo ay ugu carareen sababo la xiriira in ay nabadgelyo ka heli karaan waqti dheer. Waxaana xogta aan helayna ay tilmaamaysaa in kooxdii ku sugnayd aaggaasi ay wajahday khasaare xooggan oo lixaad leh kadib markii duqeymaha dalalka Turkiga iyo weliba sidoo kale Mareykanku ay si isdaba joog ah uga fuliyeen qeybo kala duwan oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Kooxda ayaana jilib dhigi weyday islamarkaana waxaa adeegsan weyday gaadiidka dagaalka iyo dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan
taasi waxay ku qasabtay in ay iskaga yaacaan qaybihii ay kaga sugnaayeen aagga difaacyada Ceelbuur iyo Galhareeri. Marka laga soo tago miinooyinka culus ee jidadka ku aaseen, waxaa sii yaraanaysa kalsoonidii ay ku dagaalami lahaayeen. Muuqaalka sheer garow like saar qaybta hoosan aragtida nagu reeba ku xirnow wararka dhambaalka wararka nabadgelyo.